wuxuu yahay dhibiyo baahidoo la reebo barwaaqiyooda la gaadho dhibiyo baahidoo la reebo barwaaqiyooda la gaadho bogsanay bogsanay allele waan bogsanay 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 allele waan bogsanay elelooy heliyaloyeelooy bogsanay waa badhaadhay dayacii wakaa soo bir elelooy heliyaloyeelooy bogsanay waa badhaadhay dayacii wakaa soo bir اللهم صل على محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم waxaan soo sheegnay in dadkii suubanaa ambiyadii hore iyo dadkii kale saalixiintii kale qaarkood inay midabkanaga ay lahaayeen ayaan soo sheegnay waanagii ka soo bilownay haajira aan ka soo bilownay haajira kolkii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam uu ka guursaday masar waxay ka mid ahayd faraacinada ayay la joogtay la dhaqneed dadka qaar baa yidhi addoon bay ahayd waxay doontaa ha ahaato laakiin gabadhaas waxaan sheegnay inay ahayd soomaali inay ahayd baan hore casharada ka horreeyey ugu soo sheegnay haddaba daawuud calayhi salaam isna waxaan soo sheegnay inuu duriyadii ibraahim uu ka mid ahaa nabiyullaahi muusa calayhi salaam sidaas lamid a isna sideennu ayuu ahaayo midabkeenna buu lahaa haddaba dad waa wanaagsanna oo soomaalinimada soo gelayana way jireen dad xunxunna way jireenoo oo soomaalinimada soo gelaya sida ramsaskii labaad waa fircoonkii sheegtay ee banimada sheegtay oo dadka xumaa buu ka mid yahay iyo waxaa kaloo xumaanta aan ku daraynaa ninka la yidhaahdo namruud la yidhaahdo oo asna boqorka ahaa asna dadka xun buu ku jiraa laakiinse kolka gadaal loo raaco oo midabkayni lahaa oo inaga maaragtay nala mid ahaa ee taariikhyahanada qaarkoodna ay sheegaan inuu ahaa dadkii halkaas dhulkaasoo idil ku qabsaday awoodda ku qabsaday mesobotamiya dhulkaasoo idil sidii aan ugu qabsanay ilaa maa gadaal afrikada galbeed halka la yidhaahdo saxaraha galbeed loo yaqaano magaca soomaaliyeed inuu jiro ilaa alaanadan 2021 in laga helayo dad isirkoodu yahay ee dambe ee ku abtirsada soomaali sida qolada loo yaqaano barbariga waa saxaraha galbeed bay degaan ayagaa si waadix kuu odhanaya annaga asalkanaga waa soomaali oo abtirsiimadoodu markay tirsadaan dhowr iyo 10 magac kadib wada soomaali bay noqonayaan rooble socdaal maxaa la yidhaahdaa sidaa bay noqonayaan colaad magacyo noocaas ayay noqonayaan marka waxaad ka garanaysaa dadkan waxaa lagu kala gartaa abtirsiimada magacyada ayaa lagu kala gartaayo deegaanka laftigiisa magaca ayaa lagu gartaa deegaan soomaaliyeed inuu ahaa in kale sida qolada hexus unbay lamid ahaayeen oo misna fircoonkii dib ugu duulay ilaa ma dhulkan sudaanta koofureed maxaa la yidhaha niilka koofureed webiga niil ee koonfurtiisa ay wada qabsadeen waa isla inaga un wixii haddaba hayaysan kaa raaridin nimankan caddaanka wax walba oo wanaagsan dad caddaan bay ahaayeen wax walba oo wanaagsan dad caddaan xaqiiqda kolka la gaarana way ka meermeeraano meelo kale ayay aadaan d n a-ga xaqiiq ka dambaysa oo la baadha ma jirto cashirkan wuu socdaa kii kalena way noo socdaa ogow lagama tegin waxaanu joognay or-aan soomaali ama ninkii la oran jiray oodanabe ee oromada iminka loo yaqaana danagala soomaali oo la oran jiray dankeli odacali weeyaan de ogow waa walaalkaana ogow ninka la yidhaahdo jaante soomaali iyo waxaan joognay duudse soomaali daara owd soomaali waxaan joognay samaale soomaali intaa ayaanu joognay kaano cashirkaa isagana wuu socdaa ee ogow la soco iminka halkan waxay inoogu xidhan tahay inay inaga inoo ahaayeen dadkan hadda aan soo sheegnay kuwooda susuuban iyo kuwii kale ee xumaaba inay asalka halkan ka tageen ilaan qowmiyad dhan oo wada wanaagsan ma jirto adduunka qowmiyad dhan oo wada xunna ma jirto adduunka laakiinse mid ogow maankaagana ku hay inaad adduunkan hadda aan joogno aad adiga ka hormarsaneed iminkana aad ka hormari kartid adigoo kaashanaya
aqoontaadana ku salaysiinaya diinta islaamka ku salaysiinaya alqur'aan alkariim iyo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku salaysiinaya cashirka halkaasaan ku gaabinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh